بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سورة الغاشية وسورة مكية وسورة سديتن يسديدات نزول كقرآن كريم كاه آياده دوا لحية لواتن آيادات وحي سودكتي سورة الذاريات قداشيد أي سودكتي مارت marka waxay u hadlaysaa sida qur-aankii makiga ahaa oo kale u hadlaysaa qiyaamihii ayay aada ugu hadlaysaa iyo qaybsanaanta dadku ay qaybsami doonaan oo qolana meesha ay ku dambay doonto, qolada wanaagga qolada xun meeshay ku dambay doonaan. labadaasay aada uga hadlaysaa maaragtay suuraddu. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaani araxiim. magaca ilaahay baan ku bilaabanaynaa allaha naxariista caamka iyo midda khaaska intaba naxariista. allah wuxuu yidhi subxaanahu hal ataaka ma kuu yimid waay, yacni istifaam waxaa weeye oo tacajub loola jeedo oo maaragtay xadiidka ama ka hadalka qiyaamaha laga hadlayo oo tashwiiq lagu maaragtay ujeedadiisu tahay in uu dhageysto nabiga caleyhi salaatu wasalaam in maaragtay qiyaamihii iyo sida looga hadlayo. hal ataaka ma kuu yimid ay qad ataaka waxaa kuu yimid xadiithu lghaashiyati tii dabooleysay warkeedii baa kuu yimid, ama ma kuu yimid midii dabooleysay alghaashiya, yacni waxa weeyaan waa qiyaamadii weye. qiyaamadii weye. taqsha alkhalqa baa la yidhaahdaa, khalqiga ilaahay oo dhan ayay dabooleysaahoo cabsida iyo maxaan ku idhaahdaa masaa'ibta maalintaa jirto ku camimaydo ayay ku dabooleydaa maarata. waa maalin aada iyo aada u dhib badan. ilaahay maarata allahna xifdiye. hal ataaka ma kuu yimid baa le nebigow xadiithu lghaashiyati tii dabooleysay warkeedii ma ku soo gaaray. maalinta qiyaamaha sida la noqon doono iyo dadku u qaybsami doonaan yaa midaasaa lagu sheega. marka hadda lagu kala bixbixinaya lagu sheegaya. wujuuhum buu yidhi alla wejiyaalo yowma-idin maalintaas oo yowmulghaashiya waayo yowmulqiyaama maalinta qiyaame khaashicatun mid khushuucsan weeyaan, yacni mid dulleysan weeye. wejiyaashaas way dulleysan tahay, yacni hoogga baa ka muuqanaya, waa gaaladii weeyaan. saasoo kale maaragtay yacni waxa weeyaan madaxay hoos u wada hayaan, waxay la yaaban yihiin maanta meesha ay taagan yihiin iyo inaysan wax ay soo diyaarsadeenoo wanaag aysan jirinin, masiirkooda iyo meesha ay ku socdaan ay u jeedaan. marka waxa weeyaan aada iyo aad ayay u dulleysan yihiin waay. wujuuhum wejiyaalo yowma-idin maalintaas yowmalghaashiya khaashicatun tii khushuucsan ee dulleysan waaye. caamilatun tii shaqaynaysa weeyaan, naasibatun noogsan waa caamila fii daalika alyowmi maalintaas way shaqaynaysaayo naarta ayay maaragtay shaqo loo yeelayo oo ku daalaydo ku noogaydo ayay maalintaas qabanaysaa. way silsiladaha ku xiran iyo aqlaasha lagu xiray xambaarsan tahay. waxaasoo dhan maaragtay dhibaatadaasa maalintaa hayse weyd. naasibatun tii noogeysa weeyaanoo waa maaragtay iyaduna maalintaas waxyaalo badan shaqooyin baa hubuudka meel kor laleeyahay, sucuudka iyo meel kasoo degaydo oo maaragtay yacni waxa weeyaan dhibaatadaas badan oo lagu ciqaabayo ayay maalintaas maraysaa. caamilatun tii shaqaynayday waa naasibatun noogtay, ama waxa la yidhaahdaa caamilatun weeye mid camal fashay oo camalkii ay soo suubiday oo ay ku soo daashay oo ku soo noogtay camalkaas wax aan daal ahayn iyo noog ahayn kama dheefin weeyaan.
ilaa camalku markuu wax tarayo kiisa wanaagsano waa inuu iimaan helo oo asaas uu ku ansaxo inuu helo weye. marka asaaskiina male oo waa gaalo, muxuu ahaa gaalo weye. marka asaaskii hadduuna helin camalkii waxaan noog ahayn iyo daal ahayn oo laga dheefaya ma laha maaragtay. taslaa waxay gelaysaa naar ayay gelaysaa xaamiyatan ee kululale. naar kulul ayay gelaysaa, xaraaradooda ay meel aada u kulul ay gaartay, naartaasay gelaysaa waali. wujuuhdaas waay wejiyaal maalintaa waxay gelin naar bay gelin xaamiyatan ee kululale. naartaa kuleylka badan ayaa la geynayaa. wujuuhul kaafiriin yacni dadka gaalada ahaa iyo wixii munaafiqiinta ahaa iyo wixii gaalamaati daba socdoo dhan maalinta halkaas ayaa la geynayaa, maawigu halkaasuu noqonayaa. taslaa waxay gelin oy ku gubanaysaa naar xaamiyatan ee kulul waay. naar kulul ayay ku gubanaysaa. tusqaa waxaa laga waraabinin wujuuhdaas min caynin il ayaa laga waraabinin aaniyatin ee kuleyl badanaa leleh. yacni gaartay kuleylkeeda gaayadii meesha ugu dambeyday ayay ka gaartay kuleylka ishaas. yani biyihii ay cabi laheed biyo aada u kuleyl badan oo maaragtay sii gubaya oo baabi'inaya oon ka goyneynin ayaa waraab looga dhigayaa walciyaadu billaah. halkaasaa la geynaya waay. tusqaa waxaa laga waraabin min caynin il xaggeed aaniyatin ee kuleyl badan, aada u kuleyl badan oo kuleylka meesha ugu dambeysa gaartaa laga waraabinaya. laysa uma sugnaanina layidhi wujuuhdaas maalintaa yowmul ghaashiya, wujuuhdaas uma sugnaanin, lahum iyaga uma sugnaanin طacaamun raashin uma sugnaanina. wax raashina oo maalintaa la siinayo ma jiro ilaa min dariicin, geedkaa dariica la yiraa mooyaane. waa geed naarta maaragtay kasoo baxa oo ka dhasha oo maaragtay qodxa badan, yacni waxa weeyaan oo maaragtay aada u qurub badanaa la yidhaah. geedkaas maahane wax kale oo cunto ah oo la siinayo ma jirto maaragtay. geedkaasaa raashin looga dhigaya. tacaamkooda waa dariicaas weeyaan. zaquumna waa jiraa saasoo kale meel kale qur-aanka lagu sheegay, way isu wada imaanayaan maaragtay. marka laysa lahum uma sugnaanina la yidhi طacaamun raashin ma leh oo uma sugnaanin nimankaas ma yowmul ghaashiya ilaa min dariicin, dariic mooyaan. geedkaa dariica la yiraa maahane wax kale oo raashinahoo la siinayo wujuuhdaas maalintaa ma jiro. geedkaasaa marka raashinkiisa lagu sheegay. waxaa layidhi laa yusminu ma cayiliyaa layidhi. laa yusminu yacni qofkii cunahay ku cayili maayo waay. laa yusminu ma cayiliyo. walaa yuqni kamana deeqaayo min juucin, gaajana ka deeqi maayo. yacni qofku hadduu cuno wax uu ka dheefayo haba yaraatee ma jira waayo, oo jirkiisa inta wax u taro qofku uu noolaado ku cayilo, taa la sugi maayo maleh. haddana hadduu gaajona ka reebi maayo oo gaajo haysina ka baabi'in maayo. biyihii la siinayo sharaabka looga dhigana waa lagu sheego. biyaha kuleylka badan ayaa sharaab looga dhigayaa. raashinkooda iyo maamuuskooda iyo martiqaadkoodu waa kuwaas. yowmul ghaashiya waxa sidaa lagu sawirayaa waa qoladii gaalada ahayd iyo wixii ilaahay diintiisa diiday oo dhan. halkaas masiirkoodu maantaas qaybo ka mid ahaa lagu sheegay. meelo kale iyadoo aada lagu faahfaahinayana qur-aanka waa ugu tegi doonaa haddii alla idmo. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wujuuhun, qaybtii kale la gelayaa. wujuuhun wajiyaal buu yidhi alle yowmaidin maalintaas naacimatun mid nacmaysan weeyaan. wajiyaal kale waaye, yani waa jilicsan tahay, barwaaqa ka muuqata, way dhalaalaysaa weye wujuuhdaas. nucuma yani nucumada waxa weeyaa mutanacima waa nacmaysan tahay wajiyaal maalintaas. wajiyaalna maalintaa way nacmaysan yihiinoo way nacmaysanayaanoo filjannati jannada dhexdeeday ku nacmaysanayaan.
ومؤمنين ويانو يعني عمل مرنتي إيمان كودي طاعدودي إلهي أطيعين أدونك مركي جوغين أيا الغو أمال مريا مركا ونعميسين يهين وجوه داس مركا وحال ناعمة مد نعميسين ويان ما انتعس هو هرانا وحال غوير خاشعة واي فلسوفيري وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة وإسكسو هرجيدان لبودود قولنا الدلي با كموقانيا خزي با كموقانيا هوق با كموقانيا قولنا نعمة كموقانيا وي برواقيسين يهين وإلهي با مارت ميل كرامي سنجيي برواقعي لكل من سيدا إلهي سبحانه وتعالى نوشيغي لسعيها سعيدنا يعني عملكي أي سوقبتي راضية وجوه سمت رالي كأويان عملكي دينا رالي كتا يعني عملكي دوا عمل أنفعي ووحو تري ويان عمل وحو تري وتيهر وحاليري عاملة ناصبة يعني هو يسوى شقيدي ويكون نوكتي ويان معناها لم تنتفع بعملها وكسبها شقدي سوقبتي يوحي أي نوك سوقبتي وحا نوك يدال أحين كما ديفي موي لكن قولدان ويكا ديسانتا وحا ليري عمل كيدي لسعيها راضية سعيدي رالي بيكيهين ووجوه دانو عمل كودي أي سوقبتين راضي بيكيهين ومالت ويكو قناعسيهين حي الفائدة كهلان ويكو انتفاعين واي في جنة أي هذين وجوه دان دنبوايه جنوين دحدود جنة دحدود هذين عالية سريدوي جنة سريدة أي كجرانا لي في جنة دحدود هذين عالية سريدوي وماشا لو أمال مريني منزلة دي شرفتي دي مقام كدي وحماشا يالا وجنة وهير سريسة هل كاسي جوغان الله نودارو مالت واقو ميل عجائب بدنوي marka jannadaas dhexdeeda waxa yaala lagu tusaaleynayaa oo laga sheekeynayaa waxba laga tusinayaa si lagu rajageliyo inaad jannadaas ehelkeeda ka mid noqoto oo dadkaas camalkii ay ku tagilaan suubinaya aad ka mid noqoto oo aad dadaashid ayaa mataqaana wax laga sheegayaa la tasma'u maqli maydid fiha jannada dhexdeeda laaqiyatan mid la tuuray yani hadal laaqi kelima laaqiya oo aan macno lahayn oo laqwi u saaxiiba maqalmaysidaalay ama nafs laaqi oo iyadoo dhamaarta aan macno lahayn arki maysid saas oo kale maarta wax laqwi ah oo baadil ah oo aan fiicnayn meeshaas ka maqlimaydid fiiha waxa ahaaday jannadaas dhexdeeda caynun ilba ahaatay il ayaa ah jaariyatun ee dureerayso soconayda yani ilihii jannada waayo cajaa'ibta badnaa ومالتي ملك لوغا شيكي اسكا برقانيا ايا هلكا فيها جنة احدى وحا سرور سرير ايا مرفوعة الى كوريالي يعني سرير حق قدرك ايا شرفت ايا منزل دود ادي وهير سريان قيم بدن ميشا لسيحان ايا وناقيد ايا لوغو تصالين ايا عبيها برقانيا ملك استوبر وقادو اسكتا الله ayaa maartay ayadana lagu tusaaleynayaa wa akwaabun ba ahbali koobab mawduucatun ee la dejiyay waaye mawduuca dadka maartay muuminiinta ahlu jannada hortooda la soo dejiyo la soo dhigay oo maartay ama biyahaas burqanaya dhinacyadooda la dhigo lagu cabayo oo qofkii rabaabo uu iska darsanayo ayaa meeshaas ahlu weeri wa akwaabun ayaa mawduucatun ee la dejiyo la dhigay ayaa meeshaas wanamaariqu ayaa meeshaas layiri bustayaal ama muxuu ahaa barkimana waa la yiraahdaa maartay ayaa meeshaas wanamaariqu namaariq ayaa meeshaas limasfuufatun ee la safay yani waa barkimo la safayo midba midka kale dhinaceeda la dhigay oo saas oo kale si qofku markaas ugu dangiigsado u tiirsado ayaa saa loo safay namaariqdaas la yiri meeshaas oo cajaa'ibta badan leh wazarabiyu ayaa asbustayaal leeyahay mabthuuthatun la fidiyey macnaheedu waa la fidiyey busat waa bustayaal leeyahay
oo maaragtay aada loo cajaa'ib badan oo markaas darfo leh, maaragtay faraq maaragtay cajiib ahoo qurux badan leh ayaa meeshaas majaalistaas lagu fidiyey oo lagu kala geeyey oo maaragtay sidaas oo kale maaragtay lagu qurxiyo aada iyo aada u cajaa'ib badan ayaa meesha ahali. wazaraabiyu zaraabi ayaa mabtuutatun lagu fidiyey waay. taas oo kale maaragtay meeshaas jannada dhexdeeda ah. marka intaas waxaa lagaga soo sheekiyey mu'miniinta wejiyaashaas wanaagsan oo mu'miniinta maalinta aakhiro markay tagaan wanaagga iyo meeshaas waxa ay la kulmayaan iyo xaalka meesha waxa yaala ayaa bacdi ka mida ama maaragtay qeybo ka mid ahaa lagu tusaaleeyey si aada markaas aduguna u dadaasho oo dadkaas meesha lagu karaameynayo aada uga mid noqoto. ilaahay kuwii lagu karaameeyo allah inaga dhigo, allah inagu daro. waa arrin aada iyo aada u wanaagsan weeye. marka haddana waxaa loo noqonayaa cibro qaadasho oo koonkan lagu tusaaleynayo inaad maaragtay fiirido oo ilaahay awooddiisa aada u daliishato, bacdiga aada u daliishato 4 arrimood oo indhahaagu ay qabanayaan oo qofkii garaad lahu uu garanayo ayaa lagu tusaaleynayaa. ilaahay wuxuu yidhi afalaa yanduruun, war miyaanay fiirinaynin ilal ibili geeli miyaanay eegaynin, kayfa sidii miyaysan fiirinaynin khuliqad loo abuuray, geelaa sida loo abuuray cajaa'ibteeda yaa miyaysan fiirinaynin waay. yani khalqiga badiica ah oo cajaa'ibta badan, yacni waxa weeyaan xoolahaas intifaaca badan, weynanka badan, awoodda badan, yacni hay-adeeda iyo qaabka iyo waxa maaragtay dulqaadka ay mashaqada iyo dhibka iyo oonka iyo safarka iyo ay u dulqaadanayso, yani macnaha laguna intifaacayo, lagu safrayo, lagu raraa caanihii laga maalayo, hilibkeeda la cunayo, miyaanay eeginaawey. geelaas waxa sidaa yeelay inahu allah alla wey, miyaadna ku cibro qaadan waay. afalaa yanduruuna miyaanay eegaynin ila libili geeli kayfa sidii khuliqat loo abuuray, sidii loo abuuray miyaanan eegaynin waay, oo aysan ku cibro qaadanaynin. saas oo kale maar kuwa bacdiga diidaya oo is oranaya wax laysoo bixinaya ma jiro, miyaysan taa fiirin. wa ila samaai samadii miyaanay eegaynin kayfa sidii ruficad loo koryeelay, samadan ka sarayda ee cajaa'ibta badan ee weynanka badan ee tiir ku taagan aanay jirin oo aan u jeedno mushaahad uusan jirinin, kaa miyaysan eegaynin. awoodda ilaahay baa wax cajaa'ibta badan leh. wa ila samaai samadii miyaanay eegaynin kayfa sidii rufacad loo koryeelay. wa ila aljibaali buurihii miyaanay eegayninaa layidhi kayfa sidii nusibat loo taagay, mid kastaba sidii dhulka korkiisa loo qotomiyey oo u taagtaagan yihiin buurihii, miyaysan taas cajaa'ibtaas miyaysan u jeedinaa laleeyahay kuwa bacdiga iyo qiyaamaha iyo soo bixinta diidaya. wa ila al ardi miyaanay eegaynin dhulkii kayfa sidii sudixad loo fidiyey, dhulkan sida loo fidiyey oo maaragtay yacni istiqraarka maaragta loogu sugnaanayo oo makhluuqaadka ilaahay oo dhan cajaa'ibta loogu intifaacayo, taa miyaysan fiirinaynin. waa arrin ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa ku tusinayda. wa ila al ardi dhulkii xaggiisa miyaanay eegaynin kayfa sidii sudixad loo fidiyey waay, busitad. marka waxaa la yidhi nabiga caleyh salaatu wasalaam fadakir waani baa layidhi nebi maxamedow. yacni intaas markii lasoo sheegay waanadaas ayaa waxaa layidhi fadakir waani yaa inamaa anta adigu waxaa tahay mudakirun mid waaniyaa tahay wey. yacni fadakir bilqur'aan, qur'aanka ku waani oo ku wacdi. wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin, waanadu mu'miniintay wax u taraysaaye waani baa layidhi nebi maxamedow. adigu maxaa tahay inamaa anta mudakir, yacni waa lasoo xasriyey, waa lasoo koobay. waxaa layidhi shaqadaadu adigu waxaa tahay waaniye wacdinaya oo hanuuninaya oo dadka xaqa tusinaya oo ugu yeeraya ayaa tahay. shaqadaadu waa sidaas waaye. inamaa anta mudakir lasta adigu matiidaa lay nebiyow calayhim korkooda bimusaytirin kii saytaraynaya oo lagu salliday ee qasbaya iyaka iimaanka ku qasbaya oo maaragtay sidaa rabto yeela odhanayo ku qasbaya adigu matiid waaye. laakiin waanaad leedahayoo
tusaaleyn baad leedahayo wacdi baad leedahayo taas waay midaad leedahay. laakiin qasab cidaad ku leedahay laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay. waxa weeyaan iimaanka cid lagu qasbayo lale ilaa wa ilaa dadan gelin la oranayaa ma jirto. waxa weeyaan sidaa weeyaan. lasta ma tihid calayhim korkooda bimusaytirin mid lagu salliday ma tihid ilaa laakiinse man tawallaa ruuxii jeestaa layidhi, dacwadaada ka jeesta, iimaankii ka jeesta, diinta ilaahay ka jeesta, ruuxii jeesta oo wakafara kufriya bidacwatik, dacwadaada ku kufriya oo rasuulka ilaahay ku kufriya, qofkaasaa layidhi fayucadibuhu allaahu, alle ayaa cadaabaya alcadaab alakbar, cadaabkii weynaa ayuu ilaahay cadaabaya wey. yacni qofka cadaabkii weynaa waa jahanama, jahanamaa la geenayaa. qofkii diida oo maaragtay dacwadii diida oo inkira oo qaadan kari waaya, qofkaas waxaa layidhi ilaa man ruuxii tawallaa jeestay oo wakafara kufriyey fayucadibuhu allaahu, alla ayaa cadaabaya alcadaab alakbara, cadaabkii weynaa ayaa ilaahay cadaabaya. marka qofkii dacwadan diida oo ilaahay diintiisa diida, meeshuu doono ha joogo, waqtiguu doono ha joogo, darajaduu doono ha haysto, meeshuu doono ha ku noolaado, taasaa u taalla, taasaa sugayda waay. meel uu dhaafi kara ma leh. ilaahay cid ka faka kartaana ma jirto waay. halkaasaa ku sugayda. badbaadadu waa nebi maxamedood raacdo, waa qur-aanka ilaahay ood raacdo, waa islaamnimadood raacdo, waa diinta ilaahay ood qaadato. taasaa lagu badbaadayaa fi dunya waalaakhira, aakhira iyo adduunba taasaa lagu badbaadayaa. allah ina waafajiyo. ilaahay wuxuu yidhi ina ilaynaa xaggeenna ayaa iyaabahum noqodkoodu ahaaday wey. kuwan ku diiday oo maaragtay xaqa diiday oo kaasoo horjeeda, yaa ilaynaa xaggeena ayuu ahaaday iyaabahum. marka innada khabarkeediyaa lasoo hormariyo ikhtisaasaa lagu tusaaleynayaa ilaahay keliya in loo noqonayo. ciddaad hortegayda beri ood ku xisaabinayda waa allah keliya. ee qof kalood ka cabsanaydood isleedahay ama hebel wadada kuu fariistaa ma jiro, maaragta ma jiro. ilaah wuxuu yidhi ina ilaynaa, annaka xaggeenna oo keliya ayuu iyaabahum noqodkoodu ahaaday. uma ina calaynaa korkeenna ayuu ahaaday xisaabahum, xisaabkoodana annaka unbuu ahaaday keligeen. annakaa xisaabinayna, macnaa allah baa xisaabinaya, ilaah baa ku xisaabinaya. cid kale oo kaaga waasiday karta ama been sheegi karta ama laaluush qaadanaysa haba yaraate ma jiro. ilaahay baad hortegayda, allah ku xisaabinaya. likulli sagiiratin wa kabiira, yacni kullu nafsin bimaa kasabad rahiina. qof walbaahayba naftaadu waxay kasbatay camilat fi dunyaa, adduunkan waxay shaqayday ayay marhuunatun maxbuusatun u tahay maalintaas. waxa ku fakinaya waa camalkaagii wanaagsanaa ayaa ku fakinaya. haddii aad camalkii kaa xumaadana walciyaadu billaahi meel xun ayuu kula aadayaa. fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaa imaanaysa. ilaahayna badbaadiyo maarag. ina ilaynaa xaggeena intii ka ah ayaa iyaabahum noqodkoodu ilaa ahaaday waay. yacni ina iyaabahum noqodkoodu ilaynaa xaggeenu ahaaday. saa tarkiibku saasu ahaa. marka lasoo hormariyo maar si ikhtisaaska u faa'iideeyo. ina ilaynaa xaggeena ayaa iyaabahum noqodkoodu ahaaday. uma ina calaynaa korkeenu xisaabahum, xisaabtooduna annakayna saaran tahay. oo qof walbaba waxa xisaabinayaa inahu allah, alla weeyaan. ilaah baa ku xisaabinaya. marka ilaahay xisaabtaada haya, ilaahay asagaad hortegaydo agtiisa wax geyso, wanaag geyso, daaco geyso, diin geyso, toosnaan geyso. taasaa ku anfacayda wey. waqti kastoo joogta waa noo tarayaahay waa islaamnimada wey. waa islaamnimadoo lagu noolaado, waa islaamnimadoo lagu dhinto, waa islaamnimada lagu toosnaado. xaqiiqada aan la horeynin taas weeyaan. allah inagu anfaco. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.